arrimihii gudaha oo kale waxa weeye si wanaagsan bay u shaqaynayaan wadadkii qoraalo badan hadda inay qoreen arrimo badan oo xagga qolada tan security councilka loo gudbiyena ay hadda ay ugu jiraan qoraalo badan ay u qorayaan oo haddii ay bidankeeda leeyahay kuwa hore socdana ka shaqaynayaan meel walba oo ay isleeyihiin arrimaha waxbaad ka qaban kartaan ama waxbaad ka gaadsiin kartaan qadiyada tan shacabka intasii u kacay oo adduunka aad ogeysiin kartaana way ka shaqeeyaan week dhaaf ama week walbana way shiraan wixii soo kordhay wixii la qabanayo guddiyadu waxa weeye sidii ay hawshooda hadda u kala habboonayd ee hawshooda hadda ku taagneed baahidooda ayay u shaqaynayaan ilaa iminka wax qabadkaanu qabanayna waxaad ka garanaysaa sida ay ku timi in guddigaasi baxaan wadankii galaan hawshay ay wadaan marka waxa weeye hawshu guddigu sidii la doonaya bay u wataan una socdaan si toosana jaaliyadahan toos ula xidhiidhnaya dadka khusuusan uruurta u naga maqan waanuna ka yara cagajiidnay waa inaanu internetka wararkayga soo gelino ilaa arrimahayagu noo fulayaan insha allah aad iyo aad baad u mahadsan tahay kolley anigu ahaan xagga miidiyaha marka ay noqoto waxaan u malaynayaa waxaad u baahan tihiin guddiyadiina inaad samaysataan wax xagga saxaafadda idinla shaqeeya ama dadka idin inform gareeya sababtoo tahay dadku ma wada ah guddigu waa dad yar shirka guddigii lagu magacaabay aniga shaqsi ahaan axmed waxaan dhaliisanahay xagga xiriirkooda dadka ama miidiyaha inuusan horeyn su-aal baa jirta halkan nala soo weydiiyey Saleebaan adiguna jawaabteeda waa ka qayb qaadan kartaa haddii axmed uu ka dhex galo Saleebaan war aan su-aal weydiiyo miya Ahmed ka qabtaa adigu ma ana su'aalaha weydiiyay adigu maanta waxa tahay marti weey Saleebaan baa ku cabdaan laakiin maalin kale aad heli doontaan baan u malaynayaa su'aal kale aan soo weydiiyay su'aashan ما أهان ملايني سؤال أنا نوع هذا جرانين سبته ووح عن هذا عن الأوجين لكن ما دام عن مجتمعي عن كسر جنة وحي فكرة أما وحي ضد كده جانا ذا SSC أي دمعسيين وحي ملايني وكتشوا بكرنا سؤال شو وحي لا ذا هاي ضدكو محي كسر جيان شركة قاتمو ما معمول ما لقي أبا إن قاتمو لو سمعيه دولة أما معمول كم ذا حبنان سوماليان يبتلان وسؤالنا اللي جسوا ويدي أونلاين كا وعادت سؤال كله كحكتان أو حاجي NSUM كدر بيسي لكن ما دام وسن NSUM قف كم ذا وسن ما أنت نلت شوجين سؤالنا صدق عيق جبان كذي قدونا إن شاء الله وحن ويدين دونا قف مركا يساق كتر سن أوركا أما حزبية NSUM ويساقوا حدا كم ذا أحبا هجانكي SSC إنكستو لكن حزبيهان ولو يسجروا سلبان بل أنت أنا دي كوسو قد بن قليف هذا الشخصي أهان ما دام أتاليد أكسر جديد حالة ضد كان عدوك تاعي محي كلها تاعي إن شركة كسر بحدونا موح سومالي اللي أنا كسر بحدونا موح بطل اللي أنا كسر بحدونا بس ما مو مقع صبله وكسر بحدونا قليف بسم الله سيدا الله سعودتان وسؤال في عنو فالي رنتي ونباهن إن ضدك سي واقع أو نكسن لوجه جواب رنتي أرنتاسي وحيوتها الله هرتا marka odayaasha ama dadka qaban qaabinaya shirkaas ajandihiisa sameeynaya wixii ay masiirkooda ka yeeli doonaan laakiin haddaan u soo noqdo fikirka dadka iyo dadtaydaba waxa wadankan la sameeyaa waxa la yiraahdo Gallo Balls fikirka dadka la ururiyaa dadka shacabka ah ama dadka wax doorta ama dadka masiirka dadka baa la raadiyaa waxa ay doonayaan inay sameeyaan anigu waxaan qabaa runtii waxa dadkan goboladan Sool Sanaag iyo Cayn maanta ay ku sama bixi karaan waxa weeye waa iyagoo aayahooda iyagu ka tashada waa iyagoo taladooda iyagu la soo noqda iyagu meesha doonaan la aadin waxaan qabaa shirkan qaatumo ee lagu qabanayo dhulkii haddii uu noqdo anigu waxaan filayaa inuu noqdo mid maamul laisku wada waafaqsan yahay ama inta badan isku waafaqsan tahay oo ama gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn Sool Sanaag iyo Cayn waa goboladii kamida maamul in la samaysto markii maamul la samaysto baa horumarkuna ku xigaa gobolada Sool Sanaag iyo Cayn waa goboladii weey waa professorskii weey in la yimaado xisb ama eray siyaasadeed ama magac siyaasadeed oo maamula taasa masiirka baaweynta ama dadweynaha Sool Sanaag iyo Cayn ay maanta marka anu ku dhex jiraa dadkii waan dareemi karaa 80 ilaa 85% dadka Soomaalida ah ee degan Sool Sanaag iyo Cayn
maanta waxay ka midaysan yihiin inay yeeshaan wax iyagu ay leeyihiin okay aad ma hadsanta intaan u gudbin Saleebaan Cabdi Aar maxay kula tahay adiga su'aashan maxaad adigu fikir ahaan aad jeclaan lahayd inuu shirkaasi ka soo baxo horta waxa rabay horta saaxiibkay Saleebaan oo indhowida aan ismaqal isna arag Saleebaan Ramadaan Kariim waa dad badsatay adeer waxaan doonayay inaan hal mid baa aniga shakiga jira shakhsiyan hadda waxay isku qabsan la SSC iyo khaatimo waxaan u haystay shir turxaanta lagaga bixinayo waxyaabii khaldaadka ay soo kala dhaxgalay SSC ama wixii horumar la doonayay inay tigsato laakiin hadda waxaaba ii muuqataba aniga shakhsiyan in hoggaanka SSC iyo maamulkii lagu doortay Nairobi iyo khusuusidii Borowadal aan cidba tala weydiin inuu leeyahay 6 nin iyo 15 jigtiga laga diray ayuunbaa waxa dhisay oo tan hadda la leeyahay wax tan maamulka la dhisay in kalena wallahi shaki baa iga jira anigoo hadalka waxa loo badinayay labada dhinac ee garbaha inaga xiga bay qoladani u socotaa waxaana taan ku cadeynaya waxaaba ii muuqata inaanu jirin xiriir ka dhaxeeya SSC iyo groupka hadda khaatimo loo sameeyay sababta khaatimo warkeedu uu yar yahay SSC markii Saleebaana uu kamid ahaa waliba uu kamid yahay xubnaha ugu waaweyn ee ugu qaalisan oo markii uu ka soo noqday jagadii madaxweynaha uu cararayay ee Puntland uu ka soo noqday sidoo SSC uu la saan qaaday buu wali ula socdaa haddana waxa aniga shakiga jira wali sida wax loo wado inaan hogaankii wada socon inaan shirar dadka wada gelin oo group meel xaqii media laga ma hayo war group shir habeenkii doodii Minneapolis ku shiray Khalifa oo adiguna xogaal baad u tahay khaatimo meesha ay ku dambeynayso ee meesha u socoto marka waxa fiican waaqic in dadka loo kala saaro haddii ay sameystaan maamul ka gaara Somaliland iyo Puntland boqolkiiba 100 waan taageersanay aniguna waxaan kamid ahay in wixii ka madax banaananaya ninka rag waa inuu go'aan leeyahay xukumi kara moogta laakiin inuu bahdili karo Siilaanyo iyo Farole oo aan ka xiniyo badnay kana aqoon badnay kana lacag badnay kana dhul weyneyn waxa hadii ay yihiin maamul bar sameysana waa number 1 is good laakiin waxa jeclaan lahaa Saleebaan inaad xiriir wada yeelataan fiican idinka iyo maamulka hoggaanka aad iyo aad baad u mahadsantahay Cabdi Aar waliba Cabdi Aar aad baan waxaan kugu jecelahay codkaaga inaad dhiibatid oo sida runtaada waxa aaminsantahay sheegtid Saleebaan adigu ku soo dhawow jawaabta inaad ka jawaabtid su'aasha maxaad kula tahay inay ka soo baxaan meeshan ma wax Somaliland iyo Puntland ka madax banaan arintan Cabdi Aarna aan ku sii raaciyo maxaa kalifay wax alaaliya wixii jiray inay ka xoog bataan shirka qaatumo tusaale ahaan dhaqaalaha oo kale waxaad ka hadashaan wax dhaqaale la xiriira shirka qaatumo laakiin kama hadashaan wixii jiray in la sii dhaqaaleeyo oo dadkii ciidankii ama dadkii mushaarkiisa la sii siiyo ama maamulkii lala sii shaqeeyo xagee isku qabsan laadahay Cabdi wuxuu leeyahay qaatumaaba ka xoog badatay hogaankii la sameeyay maxaa soo xujiraan maxaad jeceshahay inay ka soo baxaan shirkaas Saleebaan ku soo dhaw أحمد هذا ما سنتاي شدت سنتنا دون صاحبك عدنا دون صامي خليفة أول ما تجد وسعره وكلا ولا بس تحقيقات دون مرينا عدنا كور ريو وتتنو ذو عدي صاحبك لي الشكل بابا يكلي وتعدي وشكل كسرنا هذا شركة خاصمو وحافظي هجامي SSC سليمان عيسى أحمد عيسى بفدي ilaa bilowgii ilaa dhammaadkiina wuu fadhiyey heshiisyada tan iyo guddiyada tan laga soo sameeyey ee ka dhashay shirka qaatumo inay la shaqeeyaan oo tayeeyaan hogaankii SSC-na isagaa saxeexay isagaana arrinta tan ogaab oo magaranaysa ayiday waana mid u ahayd in arrintan qaatumana shirkii wadankiina shir lagu qabto dhulbahantii iskugu yimaado wax markaa iyaga ku haboon oo ay isku raacsan yihiin oo ku midaysan yihiinna uga soo baxdana isagaa saxeexay isagaana oggolaaday annagu waxaanu ahayn anigu frontier baanu ahay si runtaa inkastaan dee ragga firfircoon ku jiray haddana markii hogaamiyaha iyagii uu ictiraafay oo ayiday sida habsamida iyo tala wanaagga ay wado khaatumo uu ayiday baan anaguna la'yi annagoo tix raacayna kuna raacsan kuna ayidnay sida wanaagsan oo hogaamiyaha iyagii u oggolaaday baan annaguna ku oggolaanay guddiyadii markaanu ku jiray annagoo SSC-ga la yidhi guddiyadaasaan la midkeena la shaqeeya baanu sidii ahayd kula shaqeyn haddaba horta sidaasaanay horta khaatumo iyo SSC marnaba aanay wax conflict uga dhex dhalan
inta yara haddii dhex timaadana waa la xaliyey waa laga wada hadlay waxa iyaga internal ahaan dhex maray SSC dhexdeeda waa mid u gaara laakiin khaatumo wixii jiray marna ma iyadu burburin marna ma hore wixii hore jiray laga gudbo iyadu waxay khaatumo mar walba ay ku tahanbaadayso oo waday war aynu isku nimaadno oo wada hadalno shirkii London waa mid lagu sii gobol xaaray wadankii sidoo wadaco hadeerna tahay khaatumo ka shaqeynaysa waxa weeye wadankii sidii loogu qaban lahaa shirkii oo la isku arki lahaa shacabka SSC dibadda gudaba oo wax macquul ah oo hadaan uga soo gudbo Axmedow tan kale ah wax dhaqaalaha kan iyo magaranaysa khaatumaha wixii oo dhanba ku xoog weynaa alxamdulillah hubin khaatuminta waliba ka shaqo weynaato su-aasha kala arbeyna naga jawaabtid waxa weeye maxaa jeceshiin inay ka soo baxaan shirkan maamul ka madax bannaan marka hadda tan dhaqaalaha oo kale hadda afku ku dhufatay khaatuma guddiga dhaqaalaha la sameeyay barnaamij shaqadiisa saddex qaybooda oo ay ku jiraan arrimihii socdana wax loogu qabanayo kuwa soo socdana wax loogu qabanayo intaba uu ku jirtaa qorshaheedina waana wadnaa wayna socdaan intii wax laga qaban karayo inta hadda wixii soconayana way socdaan oo waa lala xiriiraa waana lala socdaa taas mid ka maqan ma aha qolada guddiga dhaqaalaha ama guddigan arrimaha dibadda ama gudaha waa sidaa mid baan ugu dayaa intaan ilaa way dadka waxaa nin NSUM ma joogo waxaan ku cadeynayaa anigu SSC baan ahaa nimanka NSUM aad iyo aad baan u kala fardigoweyn maanta ragga aanu iskugu fikirnownahay ee arrinta khaatuma keentay ee aad iyo aad maaragtay wax loo xusho ay tahay inay midayso SSC iyo NSUM ay midayso hadda raggii ugu firfircoonaa ilaa guddoomiyihii ilaa iyo cusmaanbadii hadda guddoomiyaha arrimaha dibadda ah ilaa iyo guddoomiye ku-xigeenka hadda arrimaha dhaqaalaha cumar cali koore iyo hadday noqoto guddoomiye ku-xigeenka arrimaha gudaha dagaweyne intaba si toosaan u wada shaqeynaa waxaanu ku midownay oo ka wada shaqeynaa oo dheeri ka wada hadalnaa sidii aanu ugu midoobi lahayn oo aanu meel uga soo wada jeesan lahayn sidii aanu dalka iyo dadka iyaga wax ugu qaban lahayn marka maanta SSC NSU meel ma kalaha hal dhib baa meetaana guusha alla khayraad siiya khaatuma keentay haddaba tan noqonaysa haddaan kusoo dhawaado hadalkala soo gaabiyo noqonaysa maxaa shirka ka soo bixi doona wada waxa weeye inuu wax uu wixii dhici doona ilaahay baa og laakiin qorshuhu siduu ku socdo wax weyn ilaa waxa weeye oodada ama siday u kala sameeyaan baa loo kala guraabaalay waxa weeye sida ay maanta xaalku hadda maraya waxa weeye sidii loo qaban qaadin lahaa shirku siduu u dhici lahaa oo la iskugu keeni lahaa simadii caaqiladii ningarboodkii waxgaradkii dibadii gudaba rag iyo dumarba oo loo kala fuguri lahaa oo looga hadli lahaa war waxaan inaga khaldan sideedaynu u joojinaa oo maanta midnimadeena unbaynu meel ku gaari karaa sidee meel ku gaarnaa marka waxa weeye maanta wax meel ku qoran oo laleeyahay يعني قرآن قصاص نقول دونا مجهو هو اسكن ما أنا تشنه لكن صبحوا بين الإيريا لكن سووا تعالى هو أنا مدة أنا كنت عبارة لكن أنا نصب إحنا واحد إنه أنا لا معي معمول إنه أنا لا معي إنه أنا نقدر بقول بغفر يسدنتنا هرمتنا دفاعنا نبتجرينا ومدة أنا كنت عبارة إن شاء الله أنا أساس قلق الصبح يعني عادي هذا وحشوه سلبان عادي بعض ما هتنتهي NSUM أنا قد نفتكر حشمة عادو هيسد مدان وحنا waxaanu aragnaa inay yihiin dad macni rag aqoon-yahana kana mid ah macni dadka deegaanada ah xaqna ay u leeyihiin inay ka qayb qaataan jawaabteedana waxay ahayd ma aan hadda nala jooga ragga Minneapolis nala jooga qaar kamid ah nalama fadhiyaan marka ugu dambeyntii waxaanu soo gaarnay qaybtii barnaamijkan siyaasadda ee Darwish National TV aanu ku soo gabagabayn lahayn anagoo u gudbi doono barnaamijka kale qaybtiisa kale oo aanu kaga hadli doono isla deegaankaas barnaamij la xiriira horumarinta bulshada ayadoo uu inoogu marti yahay nin muxtaram Cabdimaalik Askar oo isagu ka hadli doona marka barnaamij uu wado gabagabadii bal maxaad idinku aad jeceshiin anagoo barnaamijkan sii wadi doona isbuuc walba maalin walba maalinta Sabtida ah labada duhurnimo live uga soo gali doona halkan website-dadana laga daawan karo Cabdi Aar maxaad maanta aad umaleynaysaa doodan waxay ahayd malmaleynaa doodaad culus aad ku soo gabagabeynaysaa oo daad quraasta qowlka ka dhigaysaa wallahi warta dood culus bay ahayd oo Salebaan Wajaxaad oo
madaxweynena u cararnay markii madaxweynuhu cararna de waa nin aad siyaasi ah Soomaaliya waa sida SSC hoggaan badan soo qabtay hadeerna khaatimo wax badan ka wada iyo Khalifa isna dhinacan administration oo public administration iyo daadigo horta aad waxaan ugu mahadinayaa number 1 ilaahay baa awood leh Ramadaan Kariim meel kasta joogtaan ilaahay waxa khaatimada lahayna tuso dhamaanteynba shirkan ha noqdo shir lagu horumar lagu gaaro daacad laga yahay eraysan mar walba ku adkeynay daacad laga yahay oo lugooyadii aan isla naqaanay ayna soo gelin mid kale waxaan adiga gaar kugu mahadinayaa iyo waliba Cabdimaalig oo noo soo geliyay live studio in maad sameeyno dhamaan Darwish National TV iyo horumarka uu gaaro waxaan leeyahay halka ka sii wada ilaahayna khayraana siiyo Ramadaan Kariim insha Allah aniguna Larry waxaan aad runtii aad ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaato doodan maanta waxaan mahad gaar ah u celinayaa bahweynta oo aad ugu horeysay waliba Darwish TV National TV Salmaan Wajaxad laftiisa adeerkay aad buu mahadsan yahay doodan nagala qayb qaatay okay fariin maxaa kartaa shirkan waxaan runtii anigu gudbinayaa waxa weeye in la iscafiyo dadka ehelka ah ee gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn inay iscafiyaan shirkan aan qaban qaabinayna ee Minnesota ka dhici doona long weekendiga ama weekendiga marka ciidda laga baxo in dadku ka soo qayb galaan runtii waa dood buu noqon doonaa runtii waa gelin buu noqon doonaa fikir baa la isdhaafsan doonaa qofkii waqti haya intii aan maaragtay waa September waa week ugu horeeya September insha Allah maalinta ciidda bacda ciidda weekendiga ka dambeeyo weeye waxaan kaloo rajaynayaa war haysa oo hadda imanaya shirkaas midda banaanka nooga imanaya kulay Cali Ciise waa imanaya Cabdi kulay intaan anagu ognahay Cali Khalifa waa jooga isaguna iyo waliba dad kale oo danaynaya arrimahan oo Canada ka imanaya way jiraan iyaguna runtii shirkaasi waa shir qiimo leh uu noqon doonaa jaaliyada wuxuuna noqon doonaa mid midnimada u horsoori lahaa reer Minnesota gaar ahaan waxaan fursadan anoo ka faa'iideysanayaa aan oran lahaa runtii dadka ummadda Sool Sanaag iyo Cayn ciid wanaagsan ilaahay sanadkiisa ramadaankiisa ilaahay inuu ina gaarsiiyo waqti fiican iyo inagoo maaragtay aayo fiican leh iyo amal suuban intaba Salmaan adigana gabagabadii labo ilbirqsi maxaad oran lahayd anagoo u gudbi doona barnaamijkayga qaybtiisa labaad oo ah barnaamijyo horumarinta bulshada la xiriira oo deegaanada هذا شو دوينا برنامج هو عبد المالك عسكري إن شاء الله وأن آد هذه تشيرودنا يا هرمك ذلك يدك وآد لا يقبل يا إنه إلى هاي وفر يا برنامج هو ولا جنا قيقات ولا نفهم ويشاكي برنامج هو وأنا هذا مسكح بدل بدل وأنا بقي شدنا برنامج إن شاء الله أدار وجود بوتي هذا قبل هذا برضو ما قلنا يا أحمد always waxaa taagfiyay inuu bixiyay dadka ku soo gudbisay wax ma garanaysa cusub xagga media dhammaan maanta sida filayo meel walba laga dhigaysanaya barnaamijkan inuu ilaahay kugu guuleysiyo xarakada walaal sida firfircoon hadda jeer ugu dadaalaysa danaad codka shacabka iyo dadku inay dawaaqoodu meesha gaaro dadka shaqeynaysa asa aad yagna aad ugu mahadnaq labada odaya mashacab saaxiibka iyo khaliif oo si fiican iyagu doodan waday ugana waramayay aad hore dadka waramaya taan doonayaan anigu iyo shacabka u gudbiyo maadaama inay mudahad fadhiyay inaan dadka shacabka la hadlo oo si fiican la qaban jiray xoogaan bayra joojiyay waxaweye walaalayaal meel walba adduunka daclada si joogtaan haddaad keeshaysiin waxaweye halgankan aynu ku jirno iyo dadaalkan ay ku jirnaa waa long term waxaweye waa mid muddo soconaya waa mid إذا الامتحان كذا له أو أنا كربدا هي بدبدا هي وحبدا مرة نوي ذات كل جبل ودا شوكان واحد كويسان بيد كويسان ولدو كيني راح يشتغل وليش أكمل الميز ولي إن ذات كيني هو المبلغ ولي ذات كي كان الصوماليين هنا سيري أيوه ودا قناعين أنا ولي ودا قناعين أنت فرار غير